dhinaca kale xarunta uu ka soconaya shirka ee magaalada London ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhacayaan banaanbaxyo hadaba wararkii ugu dambeeyay kulankaasi iyo qodobada looga hadlayay banaanbaxyada halkaasi ka soconaya qaabka ay u dhacayaanba waxa warbixinta inooga diyaariyay Cabdikariin Cali Kaarar waxaa halkan oo aan sida uga fogeyn halka uu shirku ka dhacaya mudaharaad ay soo abaabuleen dad Soomaaliyeed oo isugu jira qaybo kala duwan oo federaalka Soomaalida ku salaysan waxa dhinac taagnaa Jubbaland oo iyagu ka mudaharaaday dhibaatada ay ka sheegteen madaxweynaha inuu ku hayo waxa kale dhinac kale iyaguna ka mudaharaaday Khartoum State Maakhir State iyo maxaan ilaadaa Awdal State oo ku midoobay urur la yiraahdo USB dadka ka soo jeeda Jubbaland State af Soomaali baan ahay ninka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya loo doortay culusow midda koowaad wuxuu diidan yahay federalismka inuu dastuurka gacantiisa ku bedelana xaq ma ahan maxkamadda Hague baa soo joojinaynaa waxaan doonaynaa stateka Jubbaland inuu cagihiisa ku istaago taas waa aan halkan u imid maanta mana diidi karo culusow waxaan maanta mudaharaadkan u imid oo halkan u imid oo caruurtayda uga soo tagay oo Central London u taaganahay inaan codkayga ka dhiibto saddex xaal inaan madaxweynaha Soomaaliya ee sharafta leh u gudbiyo midda koowaad inuu madaxweynuhu dastuurka uu ilaaliyo midda labaad inuu u mahad celiyo dadka geystay wanaagga iyo sharafta ee gobolkooda 4 years u halgamayay midda saddexaad waxaan ka codsanayaa haddii uu khalad jiro madaxweynuhu waa inuu khaladaadka u diraa guddi khilaafaad oo khaladaadka xalliya dawladda waa federalism maadaama dawladda too federalism inuu noo ogolaado xuquuqta leenaha annuka magaalada Jubbada hoose hadaan nahno Soomaalida ku nool dad isjecelaan ahna tol ehel isjecel muxuu isqaraabaysto isdal dhalay abti iyo ayada isku isdalay inuu xaqayna waxa xaq ku leeyno inuu nasiyo way Somali federal bay ku heshiisay system constitution cusubna waa pass gareeyeen waxaad hadda u malaysaa labadiiba dagaal in lagu jiro madaxweynuhu wuxuu ku yimi federal at the same time waa diidan yahay federaalki waxaanu leenahay Somali maanta reconciliation bay u baahan tahay dib u heshiisiin bay u baahan tahay dib u heshiisiintana meeshii laga rabay inuu ka maro kama uu marin waxaanu rabnaa inuu reconciliation ka bilaabo Muqdisho Soomaali halka ku mideeyo ka bacdiina uusan hor istaagin shuruudihii u saamaxayay shuruudihii constitution-ku ugu saamaxay in laba gobol iyo wixii ka badanba sida Jubbaland madaxweynuhu waxa moodaa in sidii lagu doortay iyo dastuurku dhinac marsan yahay Prime Ministerku waxa moodaa Soomaaliya inuu at the moment uu soo jirino picture-ka ka maqan yahay oo hurdo hawshiisa lagu shaqaysanayo MB-yadii waxa moodaa 275 Soomaaliya MB inay hurdo shaqadoodii la wado hijack madaxweynuhu ku sameeyo waa nasiib xumo wadan sharciga markii wax laga bedelayo ama madaxweyne la dooranayo baarlamaanka doorta baarlamaanka wax bedela ayagii oo loo yeerin ayaa Soomaaliya dastuurkii la bedelayaa kamana dhidhiyayaan say u badan yihiin waa nasiib xumo maanta inta halkan waxaan isugu soo baxnay ma sha Allah waad u jeedaan waxa inta taagan inta state taagan Jubbaland state baa taagan Maakhir state baa taagan Khartoum state baa taagan Puntland baa taagan Soomaali weyn oo dhan baa taagan intaan ka ahayn xamar madaxtooyada iyo lambar 4 dhexdooda intaan ka ahayn waa taagan tahay maanta waxaan u sheegaynaa adduunweynaha oo aan ku codsanaynaa dhaqaalaha ay leeyihiin xasan baan ugu yeeray inuu dhiibo looma dhiibi karo waana ka soo horjeedna magaca Soomaaliyeed oo wax ku qaadanayo xitaa Soomaaliland baa nugu jirta waxaad nooga sheekaysaa bal ujeedada aad u soo qaban qaabiseen mudaharaadkan iyo danta aad ka leedihiin Somali General Wadin Salaami Cabdikariin ujeedada aan u soo asaasnay mudaharaadkan waxa weeye waxa aan kaga soo horjeednaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo aan ognahay maanta inuu yimid muxuu ahaa magaalada London shirkaas halkan muxuu ahaa caalamku maanta isugu yimid ayaa waxaan rabnaa inaan u sheegno in madaxweynuhu nidaamkii lagu soo doortay dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu ka leexday taa ayaan rabnaa caalamka inaan u sheegno in madaxweynuhu completely uu ka leexday nidaamkii federalismka ee ummadda Soomaaliyeed ay ku dooratay dawladdan muxuu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka yahay taa ayaan kaga soo horjeednaa inaan caalamka u sheegno aad baad mahad danta aad ka leedihiin danta aan ka leenahay waxa weeye in aan haba yaraatee wax deeqa aan la siinin dawladdan Soomaaliyeed maadaama nidaamkii shacabka Soomaaliyeed lagu soo doortay dawladdan Xasan Sheekh Maxamuud uu ka leexday iskuna dayay inuu wax ka bedelo nidaamkii dastuuriga soo ma ogid inay jiraan joint financial committee oo Soomaalidu kaligeed aanay dhaqaalaha maamulin oo dawladda ay maaragtay Ingiriiska iyo kamid yihiin Turkigu dhaqaalaha la maamulayaan Soomaaliya marka maxaad ugu diidaysaa in Soomaaliya dhaqaalaha la siiyo oo sida loola maamulo ma diidani Soomaaliya in dhaqaalaha la siiyo ma diidani laakiin waxaan diidanahay dawladda Soomaaliyeed nidaamkii basic ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ku soo dooratay oo ahaa federaalka
tii ayuu ka tegey muxuu xasan sheekh maxamuud ilaa arrinta ayadaa ay timaaddo oo ummadda soomaaliyeed la dhex dhigo muxuu ahaa dib heshiisiin dhab ah waxaan dhihi karnaa dhaqaalaha soomaaliya maanta loo geynayo waa mid fidna abuuri kara oo lagu iibsan karo hub oo ummadda soomaaliya laisugu dhiibi karo horta haddii soomaaliya wax loo qabanayo in wax la diido cidina ma diidi karto waa la rabaa laakiin waxaa ka horraysa su'aasha ah ma yahay xasan maxamuud culus oo nin soomaaliya in wax loo qabtan raba jawaabtu waa mada waa nin doonaya soomaaliya burburka ee ka soo baxday 22 sannadood inuu ku celiyo oo ku abuuro dagaal sokeeye ayuu u muuqdaa oo ku hadlay mana uu qarsanina wuu caddaystay waxaad caddaynaysaa oo markhaati ka ah maydka xamar yaalla maalin walba iyo qaraxa yaalla ummaddii soomaaliyeed masaakiinteeda shacabkeeda saa u dhimanaysaa ninka saa u gelaya hal maalina lamu dagaalamin inuu la dagaalamana kuma camal jiro wuxuu doonayaa qabaa'ilkii soomaaliyeed inuu isku diro soomaali oo qabiil ka soo bogsanaysa inuu dib u nooleeyo sidaa la'ashligeed baan u diidannahay in wax caawimaa isaga gacanta loo geliyo nimanka ah communitiga guddiga ah ee dhaqaalaha loogu talagalay inay maamulaan wixii dhaqaalaha soomaaliya la siinayo laakiin aan dawladda gacanta loo gelinin waayo ma maamuli karaan cabdikariin cali kaar Somali Channel London